Gabar yar oo ku guulaysatay gaari qiimihiisu yahay 46,000 oo doolarka Mareykanka ah, cumro bilaash ah iyo jaamacad bilaash ah kadib markii ay kaalinta koowaad ka gashay tartanka Qur'aan akhriska 30 juz. قوم الظالمين Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan sii share gareyso page-kan aad ku soo biirto si saaxiibo badan muuqaalkan u gaaro mahadsanidin badan. Gabadhan da'da yar ayaa ku guulaysatay gaarigan qaaliga ah oo nuuciisu uu yahay Toyota Highlander Platinum oo qiimihiisu yahay 46,000 oo doolarka Mareykanka ahna jooga, sidoo kalena heshay cumro bilaash ah iyo sidoo kale jaamacadda Madiina ee waddanka Sacuudiga oo ay si bilaash ah ku heshay dhigana doonto kadib markii ay kaalinta koowaad ka gashay tartanka Qur'aan akhriska 30 juz. Gabadhan da'da yar oo lagu magacaabo Fartuun Cabdulqaadir Waakow ayaa waxa ay ku guulaysatay tartankan loo qabtay gabdho iyo wiilal gaaraya ilaa iyo 530 tartamayaal ah oo Qur'aanka Kariimka ku tartamayay, waxayna ardayda dhigeeda kula tartamaysay 30 juz ee Qur'aanka Kariimka ah oo sanadkiiba mar ay qabtaan madrasada Al-Imaam Al-Shaatibi oo ku taala Mareykanka, isla markaana Fartuun Cabdulqaadir Waakow ay noqotay ardayda ugu sareysa isla markaana kaalinta koowaad u gashay ardaydan ku tartamaysay Qur'aanka Kariimka 30 juz. Fartuun Cabdulqaadir Waakow oo da'yar ah ayay macallimiinteedu sheegeen in muddo ka badan 6 sano ay Qur'aanka baranaysay, arday dadaal badanna ahayd oo ay aad u firfircooneed isla markaana ay Qur'aanka aad ugu fiicneed. Tartankan ay ka qayb gashay Fartuun Cabdulqaadir Waakow ayaa ahaa dhowr qaybood, kuwaasi oo madrasada Al-Imaam Al-Shaatibi ay u qabatay qaybta koowaad 30 juz ee Qur'aanka Kariimka ay ku tartamayeen arday badan, qaybta labaad oo ay ardaydu ku tartamayeen 15 juz ee hore ee Qur'aanka iyo sidoo kale 10 juz ee Qur'aanka ugu horeysa oo ay iyagana ku tartamayeen arday badan, iyo qaybta ugu dambeysa oo ay ku tartamayeen ardayda qaybo ka mid ah 5 juz ee Qur'aanka Kariimka ugu horeyso. Fartuun Cabdulqaadir Waakow ayaana ku guulaysatay isla markaana noqotay ardayda kaalinta koowaad u gashay 30 juz ee Qur'aanka Kariimka ah ardayda ku tartamaysay, isla markaana tartan adag ay halkaasi ku gaartay. Fartuun Cabdulqaadir Waakow iyo eheladeeda lagu casuumay goobta gaariga qaaliga ah ee Toyota Highlander iyo hadyado kale lagu guddoonsiinayay ayaa waxay maamulka madrasada Al-Imaam Al-Shaatibi iyo shirkadda hadyadda bixinaysay waxa ay ka guddoomeen gaarigan qaaliga ah iyo hadyadda ay ku guulaysatay Fartuun oo ahayd guulaystaha 30 juz ee Qur'aanka Kariimka ah, waxaana gaariga iyo hadyadda ku wareejiyay maamulka tartanka mas'uuliyiintii qaybta ka ahayd. Dhanka kale waxaa iyagana jiraan arday kale oo ku guulaystay kaalmaha labaad, saddexaad iyo afaraad iyo sidoo kale arday kale oo codkooda iyo qaabab kala duwan hadyada lagu guddoonsiiyey.